السلام عليكم ورحمة الله. تقصيga mawduucina maanta waxaan soo qaadanaynaa cayaankan yareen hor yaalo taqsiga ama tixsiga sidaad u taqaanaba waa cayaan baaritaan badan lagu sameeyay magaciisana lagu sheegay quraanka sidoo kale rasuulkana uga hadlay xadiis waa xasharo yar aan si joogto ah u aragno gurigeena oo aan dibkiisana ka jiifan wayno haddaba waxaan ka ogaano cayaanka cajiibka ah kusoo dhawaada mawduucina maanta. إلهي وحوليه هي أسقو ابن آدم كالهدلايو يا أيها الناس دادو ضرب مثل فاستمعوا له وحال إذن سين مثل أم تصالح فاستمعوا له إليجستا إن الذين تدعون من دون الله كواد إلهي كسو كواد ويرانيسان لن يخلقوا دبابا تحسي مأوري كلام غورتي أما مركي السوق الميان أو السوق معيان تقصي مأوري كلام وإن يسلبهم الدباب شيئا لا يستنخذوه منه هدو وتحسيق واحد كخاتنا كما صديقان كران ضعوفة واحد ضعيفة الطالب والمطلوب كي واحد البضي كي لقد البضيبة تحسيقوا وعيان أدو عجائب بدن بارتان لرنا لغو سميي قرنقي أن صدفنا إلى واتنات كوح باريال أستراليانا أيا بارتان كو سميي قارهان بالاشيسا وحين أغادين إن بالاشا أو كوباتو وحليدكو أهان جيرمسكا وحان ود أغنهاي إن تقسيقا meesha uu ku nool yahay ama ku dago ay tahay meel wasqaysan oo khurmaysan marka laga soo tago jeermiska uu wato wuxuu kaloo baalash ku wataa waxlid ku ah jeermiska antibiyootig ayuu baalash ku wataa waana arinta keentay in hadii uu sharaabka ku dhaco macna biyaha ama shaaha hadii uu ku dhaco in hoos sii gelinayo hadii aan idin jilciyo waa marka uu biyaha ku dhaco fartaad ayaa ku siiriixaysa oo hoos ay sii gelinaysa waxaan filayaa inaad fahanteen waxaan ula jeedo hoos ay sii gelinayaan tasiga markuu ku dhaco بيها أمشاها رسولك نحوق الله حديث وري أبا هريرة الله كرر نخذه إذا وقع الذباب في شراب أحدكم هدي أو تحسيقه أو كدعه بيها دعويسان شراب كينا هدو كدعه فليغمسه ثم لينزعه كؤليا كذبنا كسارة فإن في أحد جناحيه دواء بالشيز متكوت دواء أي أسقنا للدواء كذب مركلا باري وحكا بي حديث كان ayaa waxaa la ogaaday inuu tixsiga baalashiisa ku wato wax lid ku ah jeermiska tixsigu waa cayaan aad u cajiib badan cajaybtiisna waxaa ka mid ah inuusan lahayn wax calool ah waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo uu leeyahay calool maxaa yeelay xagu gelinaya raashinka hadduu cuno midaan qabso markii uu cuntada cuno kadib ma geliyo caloosha jirka ayuu kusii kala faafiyaa dhiig ayaa kala qaata markii uu doonayo inuu wax cuno wuxuu kusii daayaa dheecaan kaas uu saamaxayo inuu cuntada u noqoto wax aad u yaryar inay noqoto unugi aad u yaryar si ay u noqoto mid geli kara qaada kara jirkiisa dhiigaysa taasoo ah in markii uu cuntada cuno ay calooshiisa aadaynin oo ay dhiigiisa iyo unugidiisa raacayaan taqsigu wuxuu leeyahay qalbi yar xusiistiisna aad ay u gaaban tahay waxaad arkaysaa in taqsiga uu kusoo deganayo cuntadaad cunayso markaad iska iriirsana si kama kadib ugu soo laabanayaan midaasoo sabab u ah xusuustiisa aad ku gaawan taqsigu wuxuu laga ku wataa wax u saamaxayo inuu meel walba ku dhago wuxuu ku dhigi karaa derbi soo fooraro wuxuu ku dhigi karaa derbi iska caadi ah meel kasta ayuu ku dhigi karaa taqsigu wuxuu dooli karaa jiha kasta wuxuu dooli karaa dhankay ka imaanaysa dabaysha haddii uu si toos u duulo saacadii wuxuu jari karaa 4 ilaa 5 mayl taqsigu waa cayaan aad ugu firfircoon dhankii cuntada sidaan aragnaba taqsiga markuu wax cunayo haddii uu u yimaado taqsi kale wuu u baneeyaa halka iyada dhibaayada waxa dhan arkayso markii wax cunayaan ay isku dagaalayaan waad aragtaa orgeeda markay wax cunayaan marka mid kale u imaado way isku dagaalayaan laakiin taqsiga ba isku baneynayaan mararka qaarna waxaad arkaysaa isagoo doonayo inuu wax cuno oo sheegana kuleel yahay oo marka kuna faayo sidaa daraadeed ayaa waxaa leeyahay taqsiga waa cayaanka ugu firfircoon dhankii cuntada waa cayaanka ugu raadista badan cuntada mawduucina maanta uga hadlaynay taqsiga halkan ay ku hakanayna waxaan soo gaanay gabagabada mawduucina maanta intayna markaa kulmayna muuqaalad xiga hadduu alla idmo waxaa idinkaga tagayaa fi amaanillah